halkan waxaan ku qaadanaynaa padding sida loo isticmaalo. So padding haddii aan rabno inaan fahanno, so waxaan u baahanahay itemkii ama elementigii aan ku sameynayaan padding. So item ayaan qaadanaya calaa p tag dhimalaan waxa laala waxaa rabtaa dhigi kartaa lorem yes by default intaa text ayuu sii okay sida ujeedin waxaa haysanaa qoraalkan haddii arki laadiinne waxaan sameyn karaa inaan idin soo dhaweeyo okay ciwaankana waxaan haysanaa qoraalkan okay dhimalaan intaan adiga hawada qorin waxaa ka heli kartaa Visual Studio image ayaa la lorem ayaa leedahay in alaale inta rabtaa dalba kartaa haddii rabto waxaa dhigi kartaa 5 eraysi 5 eray ayaa ku siinaysaa waxaa dhigi kartaa oo kale 10 eraysi tan hore ayaa soo sharxay 10 eray ayaa ku siinaysaa iyada ayaa tegaysaa word wrap soo jeeyo waa ii saaran yahay aada ayaa ka qaaday dhimalaan waxaa leeyahay word wrap okay save ayaa leeyahay kadib browserkiina ayaa tagaa waxaa leeyahay refresh sida ujeediin qoraalkeena intaas ayuu noqday so qoraalkaas ma rabno so padding ayaa rabnaa waxaan dalbanayaa b tagan waxaa leeyahay b tag soo qabo okay b tagda waa istaa maxaa rabtaa inaad ku samayso b tagda waa istaa waxaa rabaa inaan ku sameeyo horta background inaan siyaara waa si aan u aragno waxaa leeyahay background waxaa leeyahay blue backgroundka waxaa ka dhigayaa blue so backgroundka waxay noqonayaa blue sida ujeedin background ku noqdo blue laakiin qoraalka ma la arki karo soo qoraalka si loo arko waxaa leeyahay color waxaa leeyahay cadaan qoraalka waxaa dhigtaa cadaan sida ujeedin qoraalka waxaa laga dhigaa cadaan okay hadda ayaan sharxi karnaa casharkeena kaasoo ahay padding sidiisa asiga waxaa loo isticmaalaa shayga aad rabto darbiyadiisa in aad ka soo sakiso shay kasta wuxuu leeyahay width iyo height kan hadda wuxuu leeyahay width iyo height-kiisa anaga ma siin laakiin by default browserka ayuu raacaya tusaale width ayaan siinayaa hadda waxaa leeyahay widthka waxaa waaye waa balac dhinacan inta ilaa inta waa balac so width ayaa leeyahay widthka waxaa ka dhigaa oo kale 400 pixel okay width ayaan siinayaa okay hadda 400 pixel ayaan ka dhigay widthkiisa hadda browserka ayuu iska raacay laakiin hadda browserka ma raacayo oo widthkiisa waxaan ka dhigay mid ii sheeg anaga aan siin so waxaan siinayaa height-ka asagana waa dhererka waa inta ilaa inta okay height ayaan siinayaa waxaa leeyahay height markii aad dhaho height-kiisa waxaan kaloo iska leeyahay oo kale 90 pixel okay cabir kale ayaa jiro oo rem kuwaas noo soo baranay waa isticmaali kartaa haddii aad rabto okay height-kiisa waxaan ka dhigay 90 pixel okay dhererkiisa okay marka hadda padding ayaa galana padding asiga waxaa waaye waa kana inta iyo inta inaad ka soo sakisid wax alaali wixii ku jiro shay kasta wuxuu leeyahay width iyo height element kasta ismaasho width iyo height haddii aad rabto qoraalkan inaad darbiyada aad ka soo sakiso ambikal image wax alaali iyo wixii rabaa noqda haddii aad padding aad siisid waxaa laga soo sakinayaa derbigan kore ama derbigan hoose ama derbigan dhinacan bidix iyo dhinacan midig iyo dhinacan hoose iyo dhinacan kore sidii fahantiin hadda balaa intusi waxaa leeyahay padding ayaa leeyahay padding top ayaa jiro kaasoo kor kasoo siki maxaan kasoo sikiyaa waxaa kasoo sikisaa 10 pixel okay hadda 10 pixel ayaan dhahay kor kasoo siki 10 pixel kor kasoo siki ayaa dhahay kor intee waa kana kor ayaa waxaa laga soo sikinayaa 10 pixel ayaa laga soo sikinayaa qoraalkan maxaa la soo sikinayaa qoraal padding sidiisa waa gudaha refresh haddii aad dhaho sidaa ujeedin kor ayaa waxaa laga soo sikiyey 10 pixel haddii ay 10 pixel igu yaraato waxaan sameyn karaa inaan dhaho kor waxaa ka soo sikisaa okay 15 pixel waa sameyn karaa sidaa ujeedin waa kaas 15 pixel ayaa kor laga soo sikiyey okay waxaa kaloo jiro padding left kaasoo dhinaca bidix padding left ayaa jiro waxaa leeyahay asigana 10 pixel kasoo sikiyey okay 10 pixel ayaa waxaa laga soo sikiyey dhinaca bidix waa kana dhinaca bidix waxaa kaloo jira padding right kaasoo dhinaca midig hadda dhinaca midig mu dhow laakiin wasna waa sameyn kartaa
padding ayaa leedahay padding right ayaa jira asigana waxa leeyahay oo kale 10 pixel oo kale asigana 10 pixel kaligiis ma waxa la rabaa inta geli karaa 100 pixel waa geli karaa 20 waa geli karaa 200 waa geli karaa muhiimadu waxay ugu xiran tahay inta aniga aan rabo aniga inta in laga soo sikiyo darbigan taas ayaa muhiimadeeda waxa la rabaa meeshaas aan gasho karaa okay refresh ayaan leeyahay saajidin midafka macnaha muu dhaw laakiin padding waa lagu daroyaa 10 pixel ayaa right laga soo hada maxaan oo dhimo waxaan dhahay waxaan soo dalbana kor bidix iyo midig kor waa kana okay bidixna waa kana midigna waa tana hoos ayaa noo dhiman taas oo ah bottom okay waxaan leenahay bottom ayaa tagaya padding ayaa leeyahay padding bottom kaasoo hoos waxaa kasoo sikisaa asigana kan si aa u bedel waxaa leeyahay 5 pixel hoos ayaa waxaa kasoo sikisaa 5 pixel okay balan isla aragno hoos ayaa waxaa kasoo sikisaa 5 pixel hoos ayaa waxaa laga soo sikiyay 5 pixel okay waxaa jira marka haddii ay qaabkan ay kula noqoto mid dheer waxaad samayn kartaa qaabkan sidaa ujeedin haddii ay kula noqoto mid dheer sida kana hadda isheeg padding top padding left padding right padding bottom haddii ay kula noqoto mid dheer waxaad samayn kartaa inaa shortcut ayaa jiro so shortcutkaas ayaa isla arkaynaa shortcut ayaa jiro shortcutka jira waxaa waaye inaad samayso aad dhahdo padding inaan dhaho kadibna aan dhaho 10 pixel 10 pixel haddii aan dhaho intaan waxaan saarayaa comment ayaan saarayaa comment markii aan saaro macnaha intaa comment waa koodkan meesha iskaga yaala waaye wax saameynayo yeelan kana sidoo kale ayaan sameynaya asigana meesha iskaga yaala wax saameynayo yeelan refresh ayaa la sida ujeedin wuxuu kusoo noqday sidii hore haddii aan ka commentiga aan ka qaado padding 10 haddii aan dhaho aan commentiga aan ka qaado refresh aan dhaho taas macnaheedu waxay tahay padding 10 kaligeed haddii aan dhaho waxa waaye dhinac kasto waxaa ka dhigtaa 10 padding left waxaa ka dhigtaa 10 pixel padding right waxaa ka dhigtaa 10 pixel padding top waxaa ka dhigtaa 10 pixel waa adigoo intaan sug hal mar waa adigoo intaan qortay padding kor waxaa ka dhigtaa 10 pixel bidix waxaa ka dhigtaa 10 pixel midig waxaa ka dhigtaa 10 pixel hoosna waxaa ka dhigtaa 10 pixel waa adigoo intaan qortay laakiin waxaa qortay kaliya intaan waxaa kusoo gaabisay 1 2 3 4 waxaa kusoo gaabisay kaliya halkaas sadar in qaab kalena oo jira waa isla arkaynaa hadda haddii aan si macnaha aan tusiyo left waa kana korna waa kana padding top waa kana padding left waa kana padding bottom waa kana padding right waa kana dhinaca waa waxaan rajeynayaa inaad fahanteen shortcut kale ayaa jiro tusaale waxaa rabaa oo kale korigaas inaan hal padding aan siiyo midig iyo bidixna inaan siiyo hal padding oo ka duwan soo kan ayaa tegaysaa kan waa padding 10 korigaas 10 pixel inaan ka dhigo waaye aan rabaa waaye midig iyo bidixna waxaa leeyahay oo kale 20 pixel inaan ka dhigo waaye saas oo kale tusaale korigaas bisa isbedelaa korigaas 10 pixel inuu joogaan inta labadan ay isbedelaya waxay noqonayaan 20 pixel tan waxay la mid tahay adigoo sidaan dhahda laakiin oo qaab short form oo soo yareynaysid ka dhigay sida ujeedin waa kaasa okay qaab kalena oo jira oo afarta value aad goonaysa hadda kaliya lama kor iyo hoos iyo midig iyo bidix waa isku qabanuna haddii aragno waa kala qaadi karnaa okay haddii aragno waa kala qaadi karnaa sidiisa aan kusoo celiyo waxay ka bilaabanaysaa mar walba waxaa laga bilaabanaya kor inta waa laga bilaabanaa marka aad kala qaadaysid inta kor ayaa laga bilaabanaa padding top ayaa laga bilaabanaa padding right ayaa lagu xijinayaa padding bottom waa kana padding left ayaa lagu xijinayaa saaidintusi waa kana okay padding top ayaan ka bilaabana kor waxaa rabaa leeyahay 10 pixel inaad ka dhigto midig ayaa ku xigo macnaha saana loo soconayaa midig waxaa leeyahay 5 pixel ka dhig hoos waxaa leeyahay waxaa ka dhigtaa 8 pixel ka dhig bidixna waxaa ka dhigtaa oo kale 10 pixel waa kana waa afarta number wuxuu ka bilaabanayaa kor
waxaa ku xigo midig, waxaa ku xigo hoos, waxaa ku xigo bidix. waa sida aan ii sheegay waa kana kor, waxaa ku xigo bidix, waxaa ku xigo hoos, waxaa ku xigo midig. waa tusaale adigoo dhahday kor meeqa dhan 10 pixel, bottom waa kana waxaa ku xigsanaya midig, right waa kana right meeqa dhan waa kana tusaale si muuqaal ahaan adigu arkiis. right waxaa dhan 5 pixel, waa kana sida ayaa ka dhigin right 5 pixel. bottom ayaa ku xigo, hoos waxaa dhanay 8 pixel, bidix ayaa ku xigo, bidixna waxaa dhanay lefty waa kana bani lefty 10 pixel. waa sidan oo kale. so video intaas oo kaga muuqaalka like saar, channel subscribe saar.